Yuu u xiran yahay Cabdimaalik muuse coldoon. Somalilan waxaa maalmihii u dambeeyay ka taagnay dood ku saabsan dacwadda la xiriirta Cabdimaalik muuse coldoon oo ah shakhsi caan ka ah baraha bulshada, kaasoo hadda xiran. Dowladda Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday ee madax-bannaanida ee Somalilan ayaa Cabdimaalik xabsiga u taxaabay bishii Agoosto ee sanadkan, kadib markii lagu eedeeyay in uu u ololeynayay in la xiro xarumaha madadaalada iyo dhaqanka iyo dugsiyada wadamada shisheeye laga maalgeliyo ee Somalilan ku yaala. Qaar ka mid ah golaha wakiilada Somalilan ayaa dhowaan beeniyay warar sheegaya in golaha uu dhibane ka yahay eedeymaha loo haysta Cabdimaalik muuse coldoon. Maxaa lagu haystaa coldoon? Inta aan la xirin ka hor, coldoon wuxuu maalmaha qaaday olole ka dhan ah xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo dugsiga Abaarso. Waxa uu ku doodayay coldoon in xarunta dhaqanka lagu marti qaado dad u ololeeya guurka dadka isku jinsiga ah xilliyada bandhigga buugaagta. Sidoo kale dugsiga Abaarso ayuu ku haystaa in dhaqamada masiixiga ah lagu faafiyo ee gaalnimada. Labadaba si kulul ayay u beeniyeen eedeymahaasi. Xukuumadda Somalilan ayaa sidoo kale gaashaanka u daruurtay eedaha uu coldoon u jeediyey xarumahaasi. Sidoo kale qaar ka mid ah abwaaniinta ugu waaweyn Somalilan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha coldoon. Maxaa loo xiray coldoon? Madaxweyne Biixi ayaa khudbad uu ka jeediyey Jaamacadda Barwaaqo bishii Agoosto ku sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ku arkay dugsiga Abaarso oo aan ka ahayn inay soo kordhiyeen waxbarasho tayeysan oo ay ka faa'iidaystaan ardayda Somalilan. Cabdimaalik wuxuu iminka xiran yahay muddo ka badan 90 maalmood. Dastuurka iyo sharciga waxa ay dhigayaan in qofka 45 maalmood ka badan inuusan xabsi ku jiri karin inta aan maxkamad la horgeynin. Ma garanayo qodobka sharci iyo xeerka loo cuskaday ninka xarigiisa, ayuu yidhi Maxamed Xabiib oo ka tirsan golaha wakiilada Somalilan. Cabdimaalik ayaa sheegay in khudbadda madaxweynaha uu ku weeraray dadka dhaliila dugsiyada Abaarso isaga oo aan hayn xog sax ah oo ku saabsan Abaarso. Sida madaxweynuhu ku ogaanayo arrinta saxda ah ee meesha ka jirta, maadaama uu booqday saacado yar oo keli ah ayna adagtahay in wax badan lagu ogaado. Haddii uu madaxweynaha doonayo inuu ogaado waxyaabaha qarsoon ee ka jira dugsiyada Abaarso, waa inay guddi ay ka mid yihiin culimada u saaro si ay baaritaan ugu sameeyaan. Arrinkaa waxaa qabay Cabdimaalik muuse coldoon. Waxaa aad loogu malaynayaa in hadalka uu soo dedejiyay xarigga Cabdimaalik muuse coldoon oo bishii Juun ee sanadkii hore laga sii daayay xabsiga dhexe ee Hargeysa kadib in muddo halkaas ku xirnaa. Ilaa ay hadda dowladda wax warar kama soo saarin xarigga coldoon, sababta in muddo ugu jiro xabsiga isagoon maxkamad la horkeenin. Joy Isa waxay madax ka ahayd Jaamacadda Barwaaqo oo horey uga qayb galay madaxweyne Biixi, sidoo kalena difaacay wararka la isla dhexmaray ee sheegaya in jaamacadda lagu dhex wado arrimo kale. Coldoon ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in haweeneyda la yiraahdo Joy Isa aan lagu kadsoomin, wuxuuna ku eedeeyay in magaalada Hargeysa ay ku faafiso diinta masiixiga ah. Coldoon wuxuu ahaa samafale caan ka ah geyga Soomaalida, gaar ahaan Somalilan. Coldoon wuxuu u soo baxay dad fara badan oo danyara sida wax ugu qaba lahaay, oo naftiisa ayuu u huray. Haddaba daawade, sidee kula tahay arrinka Cabdimaalik muuse coldoon lagu haysto?